محاضرين kala duwan ka daawo TBN Tawfiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiq Broadcasting Network. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كجرنا سورة البقرة. waxaan ka bilaabaynaa casharka aayadda 29 ee suuradda ah. huwa alladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican. huwa ilaahi subxaanahu watacaala alladii waa allaha khalaqa lakum idiin abuuray idinka khalaqa abuuray lakum idinka bani aadamka ah maa fi lardi dhulka waxa ku jiro jamiican dhammaantii. dhulka waxa yaalo oo idil ilaahay wuxuu idiin abuuray idinka. uma markaa kadib istawaa ilaahay wuxuu u qasday ila samaai samadii xaggeeda ayuu ilaah u qasday subxaanahu watacaala. fasawaahunna waa abuuray 7 samaawaatin samado 7 ah xaal ay yihiin iyagoo 7 ah xaala kownihim 7 samaawaat ayuu ilaahay abuuray subxaanahu watacaala. wahuwa ilaahay bikulli shayin wax kastana shay kastana caliimun waa ku cilmi badan oo og ilaahay subxaanahu watacaala. huwa ilaahay ayaddan ilah wuxuu noo sheegaa subxaanahu watacaala inuu dadka wax alaala wixii arlada saara dusheeda oo idil in ilaahay uu u abuuray dadka inay isticmaalaan. ayaddaas waxaa ka soo baxayo asalka culimmada ay dhaheen aslu lashyaai alibaaxa ilaa maa warada annasu fi taxriimi. wax kasta oo arlada dusheeda saaran waa xalaal, inay xalaal yihiin ayaa asal u ah ilaa wixii uu ku soo arooray qur-aan ama sunna inay xaaraan tahay ma ahe. inta kale waa noo xalaal. asalka aslu ashyaa alibaaxa wax kastoo arlada dusheeda saaran waa inoo xalaal. ilaahay saasuu yihi subxana wataala huwa ilaahay alladii waa allaha khalaqa lakum idiin abuuray idinka lakum liajlikum adinka dartiin ayuu idiin abuuray maa fi lardi arlada waxaa ku jiro oo dul saaran jamiican dhammaantii. jamiican dhammaantii waa lagu sii adkeynaya aan waxba laga reebeynin waay macnaha jamiican dhammaantiina ilaahay idiin abuuray subxaana watacaala. uma markaa kadib istawaa ilaahay wuxuu u qasday ila samaai samadii xaggeeda ayuu ilaahay u qasday. fasawaahunna samooyinkii ayuu abuuray ilaahay subxaana watacaala 7 samaawaatin samayaal 7 ah xaal ay yihiin. wahuwa ilaahay bikulli shayin wax kasta shay kasta caliimun waa kii u cilmi badan oo og ilaahay subxaana watacaala. shay kasta oo makhluuqiisa ka mid ah waa ilaahiga ugu cilmi badan caza wajal. marka arlada waxa saaran oo dhan culamada qaar waxay yidhaahdeen yani wixii dhulka ku dhex jira gudaheeda ma soo galayaan. waxay yidhahdeen kuma jiraan waxa soo galaya dhulka arlada gudaheedu. saas daraaddeed ciidda in la cuno waa xaaraan oo ciidda lama ogola. laakiin waxaa loo jeedaa aayadda dhammaan wixii arlada la xiriiro ama ha dul saarnadan ama gudaheeda ha ku jiraan saasoo kale waxa hadda laga soocayo ma laha ilaa inta xaaraanta kusoo aroortay ma ahe. fasawaahunna 7 samaawaat. waxaa meesha kaloo fahmaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu 7 sama inuu abuuray caza wajal. yacni ilaahay inuu abuuray saasoo kale. fasawaahunna 7 samaawaat wahuwa bikulli shayin caliim. samadaha iyo arlada yaa horeeyay abuuritaankeeda. meelaha culamada qaar waxay leeyihin samadaa horeysay abuuritaankeeda. oo markii hore biyo ayuu ilaahay abuuray. biyaha ayaa carshigu dul saarnaa
وكان عرشه على الماء وكإله سبحانه وتعالى كدب وحل أبوري الرضا أي الله أبوري مركا الرضا دنبيسي ليهين أيضا قاركود وحكم موضوع إن الرضا الرئيسي كدب من السماد الله أبوري مركا وحل سوا فجن كره علماء يراهدين إن لي يراهدو آيات إن لي يراهدو إلهي مركو الرضا مركو رجرم جدو سميي كوس كدو سميي كدب من إلهي وحو أبوري samooyinka markuu usoo ayuu aradii usoo noqday oo aradii markaa ku sameeyey ilaahay walarda bacda dalika daxaha aradii markaas wuxuu ku sameeyey daxwi yani waxaa loo jeedaa akhraja minha maaha wamarcaha waljibaala arsaaha mataacan lakum liancaamikum waxlaal wixii arada dusheeda saarnaa oo ama xayawaanaad ah ama geeda ah ama ayaa ilaahay ku abuuray subxaana watacaala وهو إلهي بكل شيء كستنا عليم وكي علم له وحكستو مخلوقات كيسا كمد أهنا إله وكان ومد علم له إلهي عز وجل وحسو أرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة أبو هريرة وريي إلهي وليه سبحانه وتعالى أبو هريرة وحولي أخذ النبي بيدي نبي قعنتي إذا قبتي فقال وحو يري خلق الله تربة يوم السبت عيد إلهي وحو أبو هريرة مال السبتية وخلق فيها الجبال يوم الأحد بورهن وحو إلهي كو أبوري مال الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين جيت كان وحو إلهي أبوري مال الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وحل كهنا ينا إلهي وحو أبوري مال الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء نور كان وحو أبوري مال الأربعاء وبث فيها الدواب إلهي وحو كفر لي أرض الدشيدة وحدقاق حيوان يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة آدم نوحو إلهي أبو رمان الجمعة بعد العصر عصر ككدب حيث كان صحيح مسلم أياوريه وحديث صحيحة الرضا وحل الشيء إلهي حديث صحيحة كل حكوسة أروري إن سمكستا إني تدبيهين سمكستا جرمي كذا إن شنبقولو سنة لو صعدو سما سمدا كلا إن لو صعوناي شنبقولو سنة dhulka inuu yahay 7 isagana quraanka ku soo aroray wa min al-ardi mithlahunna ilaahi subhanahu wa ta'ala dhulkana sidoo kale in la mid ah oo 7 ah ya ilaahi abuur subhanahu wa ta'ala 7da marka waxa la yiri isku dhagayeen musa kala fuqsan yihiin sida culimada raajix waxay dhahaan waa isku dhagan yihiin 60 ها سوجرا لقيتينا كان داوة جرتكم TBN حديث النبي عليه الصلاة والسلام قف دول تاكا كدعة دول حران تاكا نكي كدعة نبي وحير وحا قورت اللوغلية تطبض دول أيا قورت اللوغلية تطبض دول أيا قورت اللوغلية تاوي حتو سنة سامرك إن اسكو لك أنت تطبض إلهي بأوك سبحانه وتعالى تطبض مكبدين مسا كمان بدنا انت نصوص تشاكتي تطبضاس أيا أغنهي ساسي علمدي راهدين واذكر حسوسا وإذ قال ربك للملائكة واذكر حسوسا إذ قال أويري ربك عز وجل للملائكة ملائكتي أكويري إني أنيق جاعل مديالا يا أيان هاي في الأرض الأولكة خليفة مد خليف إيقاء أيان أرض يلا خليفة مدكاء وإساق حكومة أيان أولكة يلا قالوا وحيد الملائكة أتجعل ميليس فيها الأولكة من يفسد مد فسهادية دول فسهادية فيها الرضي مياد يليس إلهي ويسفك كدادية الدماء ديك يعني كدادية ونحن أننا نسبح حال أن أتسبح سنينه بحمد ربك مهديس أنه كدهن ونقدس أن كطاهرين لك أذيك قال وحير إله سبحانه إني أنك أعلم وحان أغهي ما لا تعلمون وحيدا أغين أيان أغهي أيضا وحي كبلا من إساء إلهي سبحانه آدم أبورتان كيسي أيا إلهي سبحانه وتعالى نور شيئا مركو إلهي بلانقرينا إنو سميو نبي آدم أما بشر لكان كو أبوره أيا إلهي نور شيئا سبحانه وتعالى واذكر حسوسا إذ قال ربك وكيري للملائكة ملائكة إني أنك جاعل مديالا يا أيانها في الأرض الأولى كان دحديسا خليفة أيان يلاي
khaliifa waxaa loo jeedaa qofka wax kaaga booskaadii joogo oo wixii adiga aad rabtay wax ku maamula, kaasaa loo jeedaa khaliifa oo dhulka isaga ka taliya. kaasaan yeelah uu yiri. ilaahay markaa wuxuu yiri qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii atajcalu ma yeelaysaa fiiha arlada dhulka miyaad yeelaysaa man yufsidu mid fasahadiya fiiha arladii wayasfiku daadiya addimaa dhiig ku daadiya miyaad ilaahu yeelaysaa? saasay yidhaahdeen. ilaahay waa caarideen, waxay dhaheen ilaahow ma waxaad dhulkan ku abuureysaa mid halleeya oo dembi iyo macsiyo ku fasahadiya oo dhiigna ku daadiya dhexdiisa, wayasfiku dimaa dhiigna ku daadiya. say ku ogaadeen? waxaa la yidhi yacni ilaah baa usii sheegay iyadana, hadalka waa loo sheego. hadal waxaa jira meesha ku qarsan oo yacni uu ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala. marka ilaah bay ka ogaadeen in uu ninkan bini aadan la yidhaahdo oo arlada lagu dul abuuri doono inuu fasahaadin doono arlada, inuu maaragtay dhiig ku daadin doono. fasahaadka dhiig la daadiyo ayaa u horeeyo. marka saasay ku ogaadeen. riwaayad kale waxay leeyihiin yani qoom ayaa jiri jiray bini aadam ka horeeyo arlada fasahaadiya sidoo kale. marka qoomkaas oo kale inay noqon doonaan ay kasoo qaadayeen. qaaluu waxay dhaheen malaa'igta atajcalu ma yeelaysaa fiiha arlada man yufsidu mid fasahaadiya fiiha arladii dhexdeeda wayasfiku ku daadiya addimaa dhiiga ku daadiya, dhiig badan ku daadiya. dhiig daadinta waa fasahaadka meesha ugu horeyso. maxaa yeele wanaagu iyo islaaxu waa nafta in la badbaadiyo. islaamka asal saasa u ah. walxaal naxnu anaga nusabixu aan tasbiixsanayno bixamdi rabbika rabbigaa mahadiisa anagoo ku dheehan, wanuqadisu laka aan ku daahirinayno, waxuuna idil aan kaa nasahayno. miyaad keenaysaa dad kuu shariig yeela, kugu kufriya, ku caaya, ku maaragtay kuu gafa? miyaad keenaysaa ilaahay? qaala wuxuu yihi ilahi wuxuu yihi innii aniga aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydan ogeyn ayaan ogahay uu ilahi subxaana wa tacaala. waxaadan ogeyn maxay tahay ilaahay ogyahay, yacni inay ka mid noqon doonaan dad aada u qiimo badan oo nebiyaal iyo rusul ilaahay iyo dad ilaahay caabuda inay ka mid noqon doonaan ayaan ogahay buu ilahi yihi subxaana wa tacaala. oo adinkeedan ka warqabin. innii aclamu maa laa taclamuun, waxaan ogahay waxaydan ogeyn ayaan ogahay buu ilaahi subxaana wa tacaala. anaa og maaragtay. walidaalika saasa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala ku aamusiyey malaa'igtii. wuxuu damcay ilaahay subxaana wa tacaala inuu tusiyo bini aadam fadligiisa. fadliga aadan ilaahay uu ku soo saarayna waa cilmiga. wacallama ilaah wuxuu baray aadam alasmaaa magacyadii, ay asmaa almusamayaati waxyaalaha kasta magacooda, wax kastoo jira magaciisa ayuu ilaahay baray subxaana wa tacaala kullahaa dhammaanteed. uma markaa kadib caradahum wuxuu u bandhigay magacyadii wixii magaca loo bixiyey oo magaca iska lahaa musamayaadkii ayuu wuxuu u bandhigay ilaahay subxaana wa tacaala cala almalaa'ikati malaa'igta. faqaala wuxuu yihi ilaahay ambi-uunii ii sheega biasmaa'i haa-ulaa'i kuwa kan magacyadooda bal ii sheega waxyaalahan, in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo. qaaluu waxay yidhaheen subxaanaka hufnaantaada ilaahow laa cilmi lanaa annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay ma ahe, innaka adiga anta ilaahayow alcaliimu ilaah cilmi badan ayaa tahay, alxakiimu oo xikmad badan. ilaahay wuxuu tusiyey subxaana wa tacaala aadam waxaa la baray magacyadii ayaa la baray. wacallama ilaah wuxuu baray aadam alasmaaa magacyadii kullahaa dhammaanteed. shay kasta magac uu leeyahy. hadda shay kastoo lasoo qaado wax aan magac lahayn ma jiro. shay kasta magac uu leeyahay, afaf kala gedisan uu ku leeyahay, magacyo kala gedisan. marka ilaahay wuxuu baray aadam wax kasta magacooda. wax kastoo lasoo saaro magac waa in loo bixiyo. xataa dabaylaha wax loo bixinaya, duufaanada magaca loo bixina waa leeyahay
duufaankii hebel duufaankii heblaayo saasaa la leeyahay shay kasta waxaa loo bixinaya magac waxaan magac lahayn ma jiro wax kastoo soo bax magaca la siinayo nebi aadan waxaasoo dhan ayuu yaqaanay ilaahay uu baray subxaanahu watacaala yani kiimika hadday noqoto maaragtay bini aadamka jirkiisa hadday noqoto wax kasta shay kasta magac uu leeyahay marka wuxuu yaqaana magacyadoo dhan la baray waa cilmi aada u weyn shay kasta magaciisa inaad taqaan geedihii magacyadoodii wax walba magacoodii af kastana aad ku taqaan marka nebi aadan taa la baray markii taa la baray uma kullaha dhammaanteed ayaa la baray ashyaadii asmaada callama aadam alasmaa ay asmaa almusamayaat waxa magaca leh magacoodaa la baray shay kasta iyo magaciisaa la baray uma markaa kadib caradahum ilaahay wuxuu u bandhigay asmaadii ma magacyadii la bandhigay mase wixii magaca loo bixiyey musamayaadkii ayaa isku khilaafaa laakiin waxaa raajixa musamayaadkii ayuu ilaahay malaa'igta loo bandhigay malaa'igtaa la xujeeyey waxaa la yidhi waxaan faqaala ilaah wuxuu yihi subxaana watacaala ambiuunii ii sheega biasmaa'i haaulaa'i kuwa kan magacyadooda ii sheega waxyaalahan magacyadooda ii sheega yani kan maxaa la yidhahdaa kan maxaa la yidhahdaa kan maxaa la yidhahdaa waxa ayuu weydiiyey ilaahay subxaana watacaala in kuntum haddaad tihiin saadiqiin oo kuwa run sheegayo yani haddaad run sheegaysaan yani inuu bani aadamka arada fasahaadin doono ii sheega saasa ilahay kuli subxaana watacaala in kuntum saadiqiin qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii subxaanaka ilaahu hufnaantaade laa cilmi nooma sugnaanin aqoon iyo ogaal nooma sugnaanin lanaa annaga ilaa maa kii ma ahee callamtana aadna bartay wax kaloo aan ognahay oo aan cilmi u leenahay ma jirto yacni waxaadna bartay ma ahee ilaa maa callamtana inaka anta adiga alcaliimu ilaah cilmi badan ayaa tahay oo wax kasta cilmi u leh ayaa tahay alxakiimu oo xikmad badan caliim waa cilmigiisa waxaa dheer shay walba ilaahiga cilmi u leh ayaa tahay marka waxay iska fogeeyeen yani intaadna bartay un baan ilaahu cilmi u leenahay in kaloo aan naqaano ma laha adigana waxaa tahay ku ammaanay ilahay inuu yahay caliim cilmi badan alxakiim oo xikmad badan cilmigiisa aada u dheeryahay xikmadiisana aada ay u badan tahay waa magacyada ilaahay ka mid tahay caliim xakiim ilaahay subxaana watacaala marka xikmadana waxaa la yidhaahdaa wax walba booskooda ayuu dhigaa ilaahay subxaana watacaala waa xikmad badan yahay marka waxaa la labada magac markay isla socdaan magac kalo sifo kaloo saddexaad ay kordhinayaan alcaliim ilaah cilmi badan waa sifo weyn oo cilmiga ilaahay ma koobna caza wajal oo cilmi badan yahay alxakiim waa ilahay xikmad badan oo xikmadiisana ilahay waa xadaaf marka waxaa la yidhahdaa caliim iyo xakiim isla socdaa aragtadana waxaa la socdo sifo saddexaad oo maxay tahay cilmiga ilaahay waxaa la socda xikmadana waxaa la socda cilmi aan xikmad lahayn macno ma laha xikmad aan cilmi lahaynna qof caqli badan oo xakiim aho laakiin jaahil ah macno ma laha marka waxaa la socdo cilmigiisana waxaa la socdo xikmadiisana waxaa la socdo cilmi qaala ilaah markaa wuxuu yihi subxaana watacaala qaala ilaah wuxuu yihi yaa aadamu ambihum u sheeg biasmaa'ihim waxyaalahan magacyadooda u sheeg falamaa goortii anba'ahum uu u sheegay biasmaa'ihim magacyadooda qaala wuxuu yihi ilaah subxaana watacaala alam aqul miyaan idiin dhihin lakum adinka inii aniga aclamu waxaan ogahay gayb asamaawaati samadaha waxa ku maqan waalardi dhulka waxa ku maqan waaclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujisanaysaan wamaa kuntum waxaad ahaydeen taktumuuna kuwa qariya intaba waa ogahay soo idima dhihin qaaluu waxay yihin yaa aadamu ambihum qaala ilaah wuxuu yihi subxaanah yaa aadamu ambihum aadam waa magaci nebi aadam waxaa laga keenay min aludmi xoogaa wuxuu ahaa yani madow wuxuu ahaa madow xaggiisa u xigay aadam yani markaa udma ayaa laga keenay wahiya sumra wuxuu ahaa asmar ayuu ahaa yani waa yara madoobaa waa madoobaa marka waana ismi cajami ah
magaca jami oo carab ma aha aadam marka nebi aadam wuxuu la mid yahay asmaada aazar iyo caazar iyo caabir iyo shaalikh iyo magacyadaasuu la mid yahay wacallama aadam qaala wuxuu yihi ya aadamu aadamu anbi'hum u sheeg malaa'igta biasmaa'ihim magacyadooda waxyaalahan u sheeg falamaa goortii anba'ahum uu u sheegay biasmaa'ihim magacyadooda markuu u sheegay wax alla wixii musamayaadka dhan uu kan waxaa la yidhahdaa kan waxaa la yidhahdaa kan waxaa la yidhahdaa kan waxaa la yidhahdaa shay walba magaciisii uu u sheegay qaala wuxuu yihi ilaah subxaanahu watacaala alam aqul miyaan idin dhihin lakum adinka inii aniga aclamu waxaan ogahay gayba asamaawaati samadaha waxa ku maqan ayaan ogahay waxa soo socdo ku qarsoon ayaan ogahay waalardi dhulka waxa ku qarsoonna waa ogahayu ilaah yiri subxaanahu watacaala wa aclamu waxaan ogahay sidoo kale maa tubduuna waxaad muujisanaysaan oo aad sheegaysaan afka ka sheegaysaan oo korka kore wamaa kuntum waxaad tagtumuuna kuwa qarsadana yacni waa ogahay intaba ilahay saas uri subxana watacaala wacalamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun iyo waxaad qarinayseen ilaah waa ogyahay caza wajal ilaah waa wamaa kuntum taktumuuna yacni marka waxaa la yihi waxa uu qarinayay yacni ma asara waxaad qarinayseen oo hoos ood ku qarsanayseen uurkana ilaah waa ogyahay subxaanahu watacaala wamaa kuntum taktumuun ilahay saas uri subxana watacaala يعني ما أسر وحكوا لي فسر ما أسر إبليس في نفسه من الكبر وحا قرصنيسا ملائكة مركا إبليس وكل حجرها مركا وحلالها الله يا إبليس مركا الله باقي وحا قرصنيسا وأوغهي إلى سبحانه وتعالى والله صوبر نديونا ما تبدون وما كنتم تكتمون إلهي مركا وحا موقدر وأوغي وحا قرصون وأوغي إلهي سبحانه وتعالى وحا قرصون الأوغان كرين وفا أوغان كرئيسين جرين واذكر حسوس إذ قلنا أن نري للملائكة ملائكة اسجدوا وسجودا لآدم آدم وسجودا سجود احترام وحرمين سجود فسجدوا ويسجودين إلا إبليس إبليس ما هي أبا وادي ذي إبليس واستكبر وككبر إنه سجودا وكان وحو هذا من الكافرين كوا قالوا بأيو كم من نقضي إلهي سبحانه وتعالى مركو لأغادي آدم فضلقيس أوليه إلهي سبحانه وتعالى وحكو قرصون ذرية آدم ذريديسا أي إلهي مركا ملائكة أمر أسجود يرى مركا سجود احترام أي الأسجود واذكر حسوس إذ قلنا آنري للملائكة ملائكة وحان كنري اسجدوا سجودا لآدم آدم أسجودا فسجدوا ويسجودين إلا إبليس إبليس ما هي إبليس ما هي كل قد وسجودين أنت كلا ملائكتي نبي آدم بي أسجودين إبليس ما هي ملائكتنا كل حجرة مركا إساقا أبا وادي إبليس إنه سجوده واستكبر وانا كبري وكان وحو هذا من الكافرين كوا كفريي أو قالوا بي أيو كم من نقضي يعني كوا قالوا بي أيو كم من نقضي إبليس مركا إلهي سبحانه وتعالى يعني كم من ما هي جنسي ملائكته ملك الإله وحكوله إلا إبليس كان من الجن إبليس ما هي إبليس جني وكمتها يعني أساس إلهي سبحانه وتعالى من الجن أصل كيس الجن بوها إبليس كا يعني مركا ملائكته كل حجري مركا وككبري إنه سجوده قرآن كلام ربنا الوسع عليه أبى واستكبر وكان وحو النقضي من الكافرين كوا كفريي أيو كم النقضي جنسيك قال أيو النقضي ساسو كله محيي لي أمرك إلهي أيو ديدي سبحانه وتعالى وككبري يعني وإلهي سبحانه وتعالى إنه سجوده ديدي نكستو إنه سجوده ديدي وإبليس أقو هذا إلهي إنه سجوده ديدي وأن تكنين وحد نقول إبليس حرتي سياد كميتاي وكان من الكافرين إبليس أنا قالوا كميتاها صلاة كتجديد والله كفرية دينت والله قبح بين العبد والشرك ترك الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أدونك إيو قال لماذا حاول حي صلاة إنه كتجو وكان وحو هذا إبليس من الكافرين وكوا قالوا بي أيو كمن نقضي إبليس لعنه الله سجود واديدي marka ilaahay ma inkirin jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu rumaysnaa ma inkirin maaragtay ilaahay waaxidnimadiisa ma inkirin
laakiin wuxuu diiday amarkii ilaahay subxaanahu watacaala oo uu ku kufriyey. amarkii ilaahayna wuu duray, wuxuu yidhi ha asjudu liman khalaqta tiinan, ma waxaan u sujuudaa qof aad dhooba ka abuurtay, khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min tiin, anigana dabaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay. marka amarka aad isiinaysa ilaah wuu khaldan yahay inaan u sujuudo axad aad dhooba ka abuurtay. marka wuxuu duray amarkii ilaahay subxaanahu watacaala ayuu duray, xukunkii allah ayuu duray. saasaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa u nacladay oo ilaahay naclad ugu riday caza wajal. yacni nebi aadanna jannadii loo dejiyey. insha allahu tacaala casharkeen intaasaan ku joojinaynaa. insha allah waxaan bilaabi doonaa markaa haddii ilaah yidhaahdo qisada inta hartay. wabillahi towfiiq wajazaakum allahu khayr. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. 60 هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي BN. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
ستين هاسا وجرا لقيتي تينا كان داوة جرت كنتي بي